halkani waa masjid jaamici degmada Ceelbu ee gobolka Sanaaga. masjid jaamican waxa la aasaasay xilligii magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaaga ee la aasaasay ee sanadii 60-meeyadii wuxuuna soo maray marxalado aad kala duwan wuxuuna ka soo bilaabmay duur iyo qoryo markaasi la isku taagay oo loogu talagalay inay bulshadii xoolo dhaqatada ahayd ee islaamka ahayd ee ka cabi jirtay ceelka laga asaasay magaalada Ceelbu inay ka cabaan ayaa markaasi bulshadaasi ay ku tashatay inay dhisato qoryaha iyo duurka dusha la iska saaray si ay ugu tukadaan marlabaadkii wuxuu soo maray cariish markaasi dusha laga saaray jiingad wuxuuna soo maray marxalado aad kala duwan oo halkan markaasi aan ku soo dhamaan karin ugu dambeyntii maanta ayaa la dumiyay waxaana lagu darayaa qayb kore oo waxa laga dhigayaa dabaq suge oo markaasi waqti xaadir kan ay wastaadiintii iyo shaqaalihii ay gacanta ku hayaan lana dumiyay masaajidkaasi culimada iyo waxgaradka ku nool degmada Ceelbu ee gobolka Sanaaga ayaa markaasi masaajidkaasi haatan gacanta ku haya duwintiisa iyo kharash gareyntiisa waxaana ku baxaysa lacag aad u tiro badan waxayna ka codsadeen dadka gacanta ku haya masaajidkaasi ee maanta dumiyay in dadka muxsiniinta ee ku kala sugan daafaha caalamka ay soo caawinaan masjid jaamica degmada Ceelbu ee gobolka Sanaaga ee Masjidul Al-Nuur حوي وحن جوجنا مسجد كعيلبو هراء مسجد جامعي مساجدنا إلهي أيام أرتي قدر كذا إسلام كهير صريبو دقي وإس خصوصنا إنه وأنت أتقرن إنسان قدر كمساجدك إسلام كأنه هاي سنة مساجد قدر كذا عاد بويهاي قفكي لسنة عاد بويهاي كي كشغينا عاد بقدر كيس بويهاي يعني علامات كي قدر حديث إنه أخريني أما هذا إنه أخريني وحصوص إنه فرق حصوص توسق معناه هذا يعني معنا فريان وحين يرلبوس هو بكرم معها وحنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام نك مساجد للصح وإلهي درتي ودي سو مارت يبتغي بوجه الله وجه إلهي الله إلهي يكدون أيو جنة أقول له قد سيا وأرين عادو قاليا الحمد لله ومركا يعني وخصوصنا إنها مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني مساجد مهم هيرك وكجوجي مدينة هدو صوق علي والدولة الإسلام كأساسي يعني ولاد يجري أفرت ساكت بعد إيمان كأها وحاول حسين توش شيء إن إسلامك ودم بحول شيء إن بدي يبره كنا بدي يبره وكنا مساجد كان لقى سوقات قالوا ومحاول وصحنا يا ذات كاننا إلهي سبحانه وتعالى هو وبيح dadka hadda gacanta lagu hayo maagtayda keenay wax gacanta lagu hayo ilaahay waa weeyay Allah subhanahu wa ta'ala ka xoori maayo waa sadaqatu jaariya ayalka qofka dhisa waxa sameeya masaajidka wadada waa sadaqatu jaariya ma goodo ama akhriya jiro rabbi soo maray baabu hore sida la sheegay ariifka ka tawday masaajid yar buu noqday markastaba wuxuu la saangaadayay magaalada markay kortaba انت على ضد المسلمين خير الله سي با سو غارسينايو سو وداي حتى ما انت wuxuu joogaa marxalad adduumiyay si aad arkaysaa sawirka ku muuganayo waana la wadaa ahlulla dad ilaahay dad yani waxsiiyay baa ka qayb galay oo lacag soo diray waana wali waa baahanta hawshu waa taagan tahay baahidi waa taagan tahay waxaad waa muuqataa waa saqafkii waa ka maqan yahay munaaradii baa hadda faraha lagu hayayo qaadkii hore xaggii hore wajadii hore waxaana insha Allah dadka islaamka waxaan halka aynu joognaa waa baytullaahi masjid jaamici Ceelbu masjid jaamicani marxalado badan iyo waayo badan buu soo maray marba meel ha joogo maanta intaa idiin muuqata oo shaashada idinka muuqata buu marayaa oo hawsha iyo shaqada baa ka socota waxaanu dadka islaamka ah oo muxsiniinta ah oo gabdha leh oo waayeel leh oo waxgarad leh oo wax ku darsan kara waxaan rabnaa wiil iyo waali iyo walaal in wax loogu daro in qof kasta oo shakhsi
kiisa ugu hormarsado in aynu ilaah wax qaldays haddii alla kuu royahay aynu wax sii dhiganno akoonkiisa waayi maynu khayr baynu ka helaynaa waa masaajidkii ilaahay masjid jaamici magaalada ceelbu oo ay ku socoto dibahabayn ballaadhin iyo koruqaadis iyo shaqo xoogla ay ku socoto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddaan ku horeeyo shaqada masaajidka laga qabanayo kow masaajidka wuxuu ahaa masaajidadii hore oo si odayaashu ay sheegeen dhowr marxaladood buu soo maray maruu cariishahaa baa jirtay jiingad maruu ahaa maruu yaraayo koobnaa intaaba dad muxsiniina ayaa marba waa la ballaadhinayey markastay magaaladu ay ballaadhatoba waa la ballaadhinayey waana masaajidkii ugu horreeyey oo magaalada laga aasaaso alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waana masaajidka keliya ee jimcaha lagu tukado oo jumcaha laga maartay oogo marka masaajidkii wuxuu qaadi waayey dadka waxaa tii markaa in masaajidkii la ballaadhiyo wuuna gaabnaayo in kor loo qaado marka wadda waxaa ku socota kor u qaadistii iyo ballaadhintii oo xaggan hore in doora loo fikiyey iyo masaajidka haygiisa in kor loo qaado wuxuu kaloo masaajidku tay hadda la bilaabay marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta meel kasta oo ay dunida caalamka ka joogaan inay ku soo darsadaan masaajidka inay ku soo darsadaan li'annahu maxaa yeelay maalku waa saddexo waa waxaad cuntay iyo waxaad ka dhimatay iyo waxaad aakhiro u hormarsatay marka waxaa ugu anfac badan waxaad aakhiro u hormarsatay kii waalidkii wax ugu daraya kii maaragtay naftiisa wax u hormarsanaya inta waxaan ku codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan masaajidka si maaragtay baahidiisu ay maaragtay loo dhammaystiro insha allah biidlaahi tabaaraka wa nimi oo dhex taaganahay masaajid jaamici ceelbu ugu horreeyey ceelbu masjid laga dhiso sidaa odayaashu ka soo sheekeeyeen wuxuu soo maray marxalado badan hadda wuxuu joogaa meeshii aan meel looga turkeen jagooyinkiisii ku soo dhammaadeen hawshiisa ugu weyneed ugu cuslayd ay taagan tahay hadday tahay isaga guriga laftiisa hadday tahay guryaha looga baahan yahay oo sidaa mukhtaar sheegay stoorkii wax loo dhigi lahaa maqsinkii maadinka berkedii godadkii masjidkan oo ah masjidkii ugu horreeyey ee laga asaaso degmadana ceelbu ee gobolka sanaag oo soo maray marxalado kala duwan ayaa maanta wuxuu marayaa kama dambaystii waxaan loogu talagalay in laga dhigo dabaq suge waxaana haatan ay shaqadiisu ka socotaa magaalada gudaheeda masaajidka haatan waxaa lagu soo kordhiyey munaaradii uusan lahaan jirin masaajidkaasi waxaana wax loogu soo hagaajin karaa akoomada iyo lambarada iminka shaashada idinka muuqda waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur degmada ceelbu ee gobolka sanaag